kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogta qodobada aad wararkeena fiidnimo ku maqli doontaan waxaa kamid ah militariga Itoobiya iyo xulafadooda ay hogaaminayaan oo sheegay guulo waaweyn inay ka gaareen dagaal ay la galeen saacadihii ugu dambeeyay kooxda TPLF sidoo kale deegaan ay horay u qabsadeen kooxda TPLF oo la sheegay inuu militariga Itoobiya gacanta ku dhigay qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah kooxda TPLF oo sheegtay in ay dib u soo gashay gacantooda magaalada Gaasheena sidoo kale afayeenka kooxda TPLF ayaa waxa uu sheegay dawladda iyo xulafadooda haday wax kasta ay soo qaataan iyo darooriska la sheegayaba in aan TPLF kala la hor istaagi doonin iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka City ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo xaalku halka uu marayo qodobadaas oo faahfaahsan yaad warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 bisha 8 2021 daawadayaal aynu u guda galo wararkeeni oo faahfaahsan militariga dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inuu dagaal uu la galay saacadihii ugu dambeeyay kooxda TPLF gabi ahaanba inuu cagta mariyay ciidamadii TPLF ku sugnaa dhulkaasi militariga Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay guluf colaadeed oo aad u xoog badan ka waday magaalooyinka ay kaga sugayeen kooxda TPLF ee gobolka Axmaarada militariga ayaa waxa uu sheegay inuu magaalooyin muhiim ah ka xoreeyay kooxda TPLF ciidamadii xulafada ciidamadii halka joogayna ay wax lumay iyo wax la isdhiibay ay noqdeen militariga ayaa waxa uu sheegay inay gacantooda soo gashay dhul ballaaran oo kooxda TPLF maalmihii u dambeeyay ka talinayeen sidoo kale militarigu waxa uu sheegay in uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka kooxda TPLF ee lagaga xoreynayo deegaanada badan ee ka tirsan gobolka Axmaarada kooxda TPLF ayaa bilihii ugu dambeeyay isku sii balaadhinaysay gobolka Axmaarada iyadoo magaalooyin badan qabsatay hase yeeshee waxaad moodaa maalmahan iyo shalay ilaa maanta in kooxda TPLF lagaga italroonaday dagaaladii xoogganaa ee ka socday gobolka Axmaarada sidoo kale deegaana ay horay u qabsatay kooxda TPLF ayaa waxa uu sheegay militariga Itoobiya inay gacantooda ku jirto deegaanadaas waxaa kamid ah magaalada Debretabur ku magacaaban iyo Vilniusna hase yeeshee warka madax banaan ma hayno afka militariga sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegatay inay magaalada Gaasheena ay gacanteeda ku jirto kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegtay in dagaalo xooggan oo lagu soo qaaday ay iska caabin weyn kala hortagtay iska caabinteedana ay sii wadi doonto kooxda TPLF sidoo kale waxa ay sheegtay ciidamadii huwantaha ee soo weeraray Saaka inay gabi ahaanba cagta marisay ay magaalada lagu magacaabo Gaasheena gacantooda ku jirto sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxa la sheegayaa dagaalo xooggan in ay kaga furan yihiin xadka ay la leedahay dalka Eritrea wadmoodo in kooxda TPLF hadda dagaaladii xoogganaa ee gobolka Axmaarada ka wada in awoodoodu hoos u sii dhacayso hase yeeshee dawladda Eritrea ayaa waxa ay sheegtay in mar labana ka laaban doonin dagaalka ay ku hayso kooxda TPLF kooxda TPLF-na inay tahay camaasir ku habsatay dalka Itoobiya iyo geeska Afrikaba una baahan in la iska xoreeyo sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxay la kulmaysaa dagaalo xooggan oo kaga socda dalka Eritrea iyo gobolada kale ee deegaanada Itoobiya kooxdan TPLF oo koox barihii damaba aad u soo xoogaysanaysa ayaa waxaad moodaa maalmahan dambe inay khadka cagaaran galayso sidoo kale afayeenka TPLF ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda iyo huwantooduba haday soo qaataan wax kasta oo taageeraha iyo darooniska la sheegayaba in TPLF la hor istaagi doonin afayeenku sidoo kale waxa uu sheegay ajandaha ay leedahay TPLF inay tahay inay dalka Itoobiya ka xoreyso waxa uu ugu magac daray camaasirta dalka Itoobiya ku habsantay waa wuxuu ku wada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo dawladiisa sidoo kale afayeenka TPLF waxa uu sheegay in dawladda Itoobiya marnaba ay hor istaagi karin waqtigan la joogo kooxda TPLF oo TPLF-na tahay koox aad u xoog badan oo ajandaheedu iyo ujeedadeeduna inuu yahay inuu dalka Itoobiya ay xoreyso kooxda TPLF ayaa markasta waxa lagu eedeeyaa inay deegaanada Itoobiya ay dagaal ka horinayso sida deegaanka Soomaalida iyo Canfarta oo iyadu ka shaqeysay in markasta dagaaladaasi ay dhamaanin sidoo kale dawladda Itoobiya TPLF waxay ku eedeynaysaa wax kasta oo Itoobiya ka dhaca ama gobolada sida Oromada iyo Soomaalida iyo Canfartaba inay TPLF taageerayaal ballaaran ku leedahay oo dagaalada qabiilada horinaya
hase yeeshee dowladda ayaa waxay ku dadaalaysaa inay kooxda TPLF khadka ka saarto dalka Itoobiya ay nabad ku soo dabaasho. daawada qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaaladii xoogana ee saaga ka qadxay xadka Canfarta iyo Soomaalida ayaa waxaa la soo sheegaya gabi ahaanba in cagti la mariyay kooxdii Canfarta ee dagaalka soo qaaday. kooxda Canfarta ayaa waxaa la sheegay inay isku soo ekeysiyeen maleeshiyad yaryar oo qabiilada oo ciidamada baadiyaha ka howlgala ah oo dharka shacabka soo xidhan qoryahana hoosta soo gashadeen oo rabeen inay xasuuq baan ka geystaan magaalooyinka ku yaala xadka. kooxdan oo saaka soo weerartay ciidamada dowladda deegaanka halkaas saldhig ku lahaa iyo dad shacab ah ayaa waxaa la sheegay inuu gabi ahaanba fashilmay dantii ay lahaayeen. Canfarta ayaa caan waxay ku tahay weerarada gaadmada ee dadka shacabka lagu laayo, hase yeeshee Canfartu awood ma leh ay kaga hortagto ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida. ciidamadii Canfarta ee saaka dagaalka soo qaaday ayaa gabi ahaanba noqday wax dhumay iyo wax dhaardhacay iyo wax gacanta lagu dhigo. ciidamada dowladda deegaanka ee saaka halka joogay ayaa waxaa la sheegay inay guulo waaweyn gaareen, shacabka Soomaaliyeedna ay aad ugu mahad celiyeen. shacabka Soomaaliyeed ayaa mar walba waxay weerar ku soo qaadayeen kooxda Canfarta ayagoo meel cidla ka qaadan jiray dadka Soomaaliyeed markastana xasuuq baan ka geysan jiray meeshaasi. Canfarta ayaa waxay caan ku tahay inay weerarka iyada ugu horeyso baroortan ugu horeyso. Canfarta ayaa lagu tilmaamaa inay taageero weyn ka haysato dalka Itoobiya, khaasatan dowladda Addis Ababa oo markasta ay baroortooda la tixgeliyo. hase yeeshee Soomaalidu ayagu waxay noqdaan kuwa weerarka lagu soo qaaday oo hintana lagu horeeyo. deegaanka Canfarta oo lagu qiyaasay inuu yahay 100 milyan iyo deegaanka Soomaalida lagu qiyaasay ugu yaraan 12 milyan ayaa la garanaynin sida ay ku dhacayso inay markasta 1 milyan weerar soo qaadaan oo tacadiye balaaran ka geystaan deegaanka Soomaalida ayagoo la sheegay dhul balaaran oo dowladii hore Cabdi Ilay ay ku wareejisay inay wali gobolka Canfarta ka tirsan yihiin, haddana ay dagaal xoogan ka wadaan xadka dhulkii xorta ahaa. sidoo kale deegaanka Canfarta ayaa waxa uu yahay deegaan aad u yar, dadkiisuna aad u yar yihiin, hase yeeshee waxay ku tala jiraan dhul balaaran oo Soomaalidu leeyihiin inay mar labaad dib u qabsadaan. dadka Soomaaliyeed is weydiinaya say ku dhici kartaa 1 milyan inay maalin kasta deegaanka Soomaalida khalkhal galiyaan ayaa waxa ay sheegayaan in ay tahay cabsi weyn oo ka jirta deegaanka Soomaalida in dagaal ay ku qaadaan Canfarta wixii ka soo gaaray inay kursigooda ku waayay doonaan. madaxda Soomaaliduna ay markasta madaxa hoos u foorariyaan. sidoo kale qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah daawadayaal dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in ay dib u gurasho ka wadaan dagaalkii ay saaka la galeen Canfarta. hanjabaad oo ka timid dowladda deegaanka sida la sheegay xagga ay magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa waxaa la sheegay deegaanka Soomaalidu inay sheegeen inay ka xun dagaalkii saaka dhacay markastana ayagu dhibaatada tunka saaranayaan. daawadayaal waxaan leenahay tan iyo kulanti dambo wanaagsan, isku soo noqo dambo wanaagsan. salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.